بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، caawa ay tahay 26 bishii afraad 2020 waxay isoo gudbiyeen xildhibaan gaaraya 54 xildhibaan mooshinka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kaasoo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ku xadgudubka dastuurka iyo maxay ahayd ku takfirada awoodda ayaa qodobada waaweyn lagu soo eedeeyay kamid ah mooshinkaas waan guddoomiyay waan qabtay إن شاء الله تعالى وحنا سوير دونا سدا وحرك وقباح اللبانة يسوق الدين أو يعني وتمام الموشين كان قضية هاي وحنا سوير دونا اللبانة سي أي واجب كذا دستوري وقتان وحنا مركا أنا أشياء ببلاش عالم كا ومدر هالشباب دولة الصوماليات إن هالشباب بربر قرط وصارت هاي مسؤوليتنا وإسكالية هاي madaxweyne maxamed cabdi waare iyo madaxweyne ku-xigeenka marka Hirshabeelle waxaan leeyahay laga soo gaara musuqmaasuq ayaa hareeyay hantideeda ayaa la lunsaday maxay ahayd amnigeeda ayaa faraha ka baxay siyaasadeeda ayaa faraha ka baxday dowladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in dhammaan inta kala xabanaysa Hirshabeelle inay si degdeg ugu soo gaaraan annaga amaana ayaa naloo dhiibtay amaanadeena muxuu ahaa hogaankii Hirshabeelle uu ku fashilmay mooshinkiisa ayaa horyeelay waa mooshinkii saddexaad oo laga keena marka waxaan rabaa in ciddii Hirshabeelle u naxayso oo dowladda Soomaaliya ugu horeyso in arrintaasi ay wax ka qabtaan mooshinkiisa insha Allah taala saacadaha fooda inuu soo hayo si dastuurka u qaba ayaa la marinayaa mar kale waxaan u baaqayaa ummadda reer Hirshabeelle dowladda ugu horeeyaan inay aayahooda ka tashtaan maadaama Hirshabeelle ay noqotay maqaayad yani restaurant qof le camal muxuu ahaa loo shaqeynayo marka موشيكنا ويهري إن شاء الله سيد دستوري لوجود لكن جودها محل هيرشبيل وافشل انتي وحنا فشلين محمد عبد واري مدحوين كحيان كيسا إيجانا كمسؤولة فكرة فلكي وحما أيا كدعي مدحوينها جمهورية رئيس الوزراء لما حمناها كسوج هيرشبيل الدول وجر وحن شاقيا إن هيرشبيل إنه قليا أي محوها يقفوا صارنتي ومحسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.